agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland Mudane Saciid Axmed Jibriil ayaa waxba kama jiraan ku sheegay eedeymo ay guddiga dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka golaha wakiilada Soomaaliland u jeediyeen wasaaradda macdanta iyo tamarta. agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo tamarta Mudane Saciid Axmed Jibriil oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa magaalada Hargeysa waxa uu sheegay in markii hore wasaaradda la isku oran jiray wasaaradda macdanta biyaha iyo tamarta hase ahaatee bishii Juun sanadkii 2013 loo qaybiyay labada wasaaradood ee kheyraadka biyaha iyo macdanta iyo tamarta isla markaana dhammaan xafiisyadii gobolada iyo degmooyinka ay la wareegtay wasaaradda kheyraadka biyaha sidaas daraadeedna ay imka ku dadaalayaan kuna guda jiraan sidii loo howlgelin lahaa xafiisyada gobolada. agaasimuhu waxa uu sheegay in aan jirin wax musuqmaasuq oo ka jira systemka ay ku shaqeyso wasaaraddu waxaana kamid ah hadalkiisii kii hore ee wasaaradda laba loo kala qaaday dhammaan xafiisyadii gobolada iyo degmooyinka ay wasaaraddu ku lahayd in aan ku wareejino wasaaradda biyaha maadaama shaqada ka socotay gobolada ay ahayd biyo dhismayaal haday tahay iyo shaqaalaha gobolada inaan ku wareejinay wasaaradda biyaha taasi waxay keentay wasaaraddu inay iska abaabusho halkan oo ay ku qaadatay sanadkii 2014 oo dhan inay abaabul ku jirto sida u dhis lahayd ay xafiisyo uga furan lahayd gobolada. inta dabadeed markii aan wasaaradaha gobolada soo dhisnay waaranaan bilownay inaan markii hore u diro kormeer buu wuxuu soo sameeyay auditorka guud ee dawladda Maxamuud ba kormeer soo sameeyay markii kormeerkiisii uu soo dhameystay ee uu soo arkay in aanan xafiis ku lahayn gobolada ee uu arkay in muxuu ahaa shaqaale tiro yar joogan waarankii ugu horeeyay u tagnay Maxamuud wuxuu talo ku noogu soo jeediyay war maadaama ninkan ku jooga gobolka aanu xafiis ba lahayn maadaama shaqaale tiro badan oo aanay ku joogin talo aan waxaan ku jeedinayaa meel wax ku qortaba malani kale waa intaan kombiyuutarka u iibin ila dhaqaale kombiyuutar loogu iibiyaa iguma jirin aniga ayuu wuxuu igula taliyay waxaad sameynaysaa hadirin waaran meel ku qorto male halkaas aaba corruption ka imanaya marka marba meel kale lagu qabto waxaad sameynaysaa halkan uga dir wixii kharash iyo mushaharad u dirayso sida ay xildhibaanadu sheegeen wax musuqmaasuqa wax la lunsaday hanti umadu ay leedahay meel la mariyay ma jiraan. agaasimaha waaxda maamulka ee wasaaradda macdanta iyo tamarta Mudane Cabdirasaaq oo ku wehelinayay shirkan jaraa'id ayaa isna faahfaahin ka bixiyay sida ay u shaqeeyaan iyo qaabka ay u maamulaan hantida wasaaradda waxaanu yiri marka aanu calculate garayno mushaharka gaar baa loo diraa qarashaadka kale lacag gaaraysa 10 milyan iyo 800 oo shilin ayaanu 6 bilood ba mar dirnaa 3 bilood 10 milyan iyo 800 oo shilin oo qarashaadka waa kirooyinkii qofkii waxa leeyahay waa leerkii internetkii maxaa dhahday kaniisadii meelihii waashmanale iyo biyihii waa qarashaadkii caadiga ahayd ku bixi lahaa sab waara in lagu bixiyo waxaan ku dirnaa inta wasaaraddu soo qaado baanu already iyadoo hoosteeda kala u dirnaa